waa madaxayga. Kan waa sankaygi. Kuwani waa garbahaygii. Tan waa laabtaydi. Kuwani waa naasahaygii. Kuwan waa lugahaygi. Kuwan waa cawradaydi. Kuwani waa xubnahayga dhalmada. waa hagaag jirkeenu miyaan wax lala yaaba ahayn ujeedada filimkan waxay tahay inuu ku siiyo macluumaad ku saabsan sida jirkaagu isku badbedelo waqtiga qaangaarka iyo sida caruurtu yaryar ay u abuurmaan jirka haweenka iyo raggu waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin waxay tahay xubnaheena taranka iyo cawrada waa kan dhakhtar Suuman oo macluumaad badan inaga siiya wiilasha iyo hablaha yaryar aad bay u qurux badan yihiin iskuna eg yihiin laakiin marka qiyaas ahaan ay gaaraan da'da 7 ama 11 sano isbedel ayaa yimaada isbedelka waqtigan waxa loo yaqaanaa qaangaar waxaanay waqti la yaab leh ay ku noqotaa dadka dhalinyarada ah mararka qaarkoodna way ku yara adag tahay waqtigan kadibna habluhu waxay awood u yeelan karaan inay uur qaadaan caruurna dhalaan sidoo kale waa waqti ay jiraan waxyaalo badan waxa jira kiimika gaar ah oo jirka wada gasha kuwana waxa lagu magacaabaa hormoono ama dheecaanada kiimikadani waxay murugo ama farxad gelin kartaa wiilka iyo gabadha ama mararka qaarkood waxay ku keeni kartaa jahwareer markii aan qaangaaray waan naxay waayo naasahaygii ayaa weynaaday waan xasuusan karaa da'daydii qaangaarka waxaana jiray waxoogaha isbedelo oo ku yimid jirkayga sida cunugayga oo isbedelay waxay ahayd koriin baqdin leh qaybaha qaarkood jirkayga sida naasahayga iyo aniga oo wax fikrad ah ka haysan waqtigii aan caadada helay run ahaantii waxay ahayd wax lagu qoslo waayo maan garanaynin in aan gar yeelanayo waana yeeshay isbedelada qaarkood waxay ka dhacayeen dhammaan jirkayga oo dhan dhexdooda maanan ogayn aad baanan ugu wareeray isbedelada qaarkood marka aan seexdo ee aan tooso waan riyooni jiray sidaas daraaddeed marar qaarkood waxay ahayd arrin xun laakiin waayo aragnimadu waa ii wanaagsaneed sida ay ahayd ayaan iskaga qaatay waayo waxay qayb ka ahayd korniinka farxad ayaan dareemay ilaa iyo intii aan korayey sidee ayay haddaba jirka wiilashu ay isku beddelaan wakhtiga qaangaarka marka uu wiilku koraayo codkiisu wuu sii weynaadaa timo badan ayaa ka soo baxa jirkiisuna wuu ballaadhaa sidoo kale xubinta taranka wiilka ayaa intii hore ka adkaata arrintan waxaa loo yaqaanaa qotomis mararka qaarkoodna mani ayaa ka timaada xubinta taranka arrintan oo kale waxay dhici kartaa xitaa markaad hurudid cawrada ninku waa xubinta taranka iyo xiniinyaha waxay ku dhex sameeyaan gudaha xiniinyaha unugyo aad u yaryar oo loo yaqaano manidan waa ogxanta ninka mararka qaarkood xubinta taranka uu adkaadaa 10 milyuun oo mani isku jir ah oo dheecaan wadata ayaa ka soo baxa tuumbo dhuuban oo sidoo kale loo yaqaano urethra xubinta taranka dhexdiisa kaadi ayaa ka soo baxda tuumbo isku mid ah laakiin waqti isku mid ah kama soo baxdo sida manida oo kale xilligan xubinta taranku ma adka sidee ayay haddaba jirka habluhu isku beddelaan waqtiga qaangaarka isbeddelka jirka habluhu wuxuu u oggolaadaa inay uur yeeshaan oo ay caruur qaadaan naasahoodu waa ay weynaadaan sidaa awgeed waxay soo saari karaan caano haddii ay canug yar dhalaan miskahooda wuu ballaadhaa timo ayaa ka soo baxa kilkilaha hoostooda iyo lafta gumaarka dushiisa kaasoo ku taalla qaybta dibadda ee cawrada haweenayda dalool ayaa ku yaala halka oo loo yaqaano tuumbada kaadida halkaasoo haweenaydu ay ka kaadido amase ay kaadida ka soo baxdo daloolka kale waxaa loo yaqaanaa marinka dhalmada daloolkan wuxuu ku geynayaa marinka ilmagaleenka kaasi oo ah marinka kaas oo ku geynaya ilmagaleenka oo ah halka uu ilmuhu ku koro marinka dhalmadu waa halka uu ilmuhu ka soo baxo marka uu dhalanayo bishiiba hal mar ayay ugxaanta haweenaydu sii daysaa ugxaan aad u yaryar haddii ugxaanta aanay bacramin manidu ninku intaasi kadib gidaarka ilmagaleenka ayaa hoos u dilaaca kadibna dhiiga arrintani waxaa loo yaqaanaa caado marka caadada habluhu ay bilaabanto waxaa run ahaantii muhiima in la ogaado inay uur qaadi karto halkaasi oo intii ka horraysay aanay suurtagal ahayn inay uuraysato sidee ayay haweenku ku uuraystaan haweenaydu waxay ku uuraysan kartaa iyadoo galmo samaysa arrintani waxay dhacdaa marka marinka dhalmadu ninku uu galo marinka dhalmada haweenayda marinka dhalmada ninku ayaa ku sii dayn kara mani inta galmadu ay socoto manidani waxay gashaa ilmagaleenka haddii ugxanta haweenaydu ay halkaa diyaar ku tahay way rimin karaan halkaa oo ilmuhu yari uu ku dhex koro
sidaas daraadeed hadda waxaad taqaanaa sida jirkeenu ay u abuuraan carruurta yaryar. Dr. Suman ayaa la sheekaysatay koox dhalinyaro ah si ay uga sharaxaan xilliga ay suurtagal tahay inay arrintani dhici karto. Nabadey, waxaan ahay Suman, waxaan ahay dhakhtar, waxaana waxoogaa yar kaala hadli doonaa macluumaad yar oo ku saabsan sida meertada amaba caadada haweeneydu ay u shaqayso. Waxaan ku isticmaali doonaa siliskan yar si ay sharaxaad uga bixiyo waxa ku dhaca haweeneyda bishii kastaba inta ay ku jirto caadadeeda. Haweenku badankoodu waxay maraan meerto joogto ah. Waxaan uga jeedaa arrintaa inay waqti yihiin waqti bilowga oo ka mid ah caadada bilowgeeda ilaa bilowga caadada dambe. Arrintaasina waxay had iyo jeer dhacdaa qiyaas ahaan 28 ilaa 30 maalmood. Waxaad ku isticmaali kartaa siliskan laf ahaantaada sidaas daraadeed iyagoo ay la socdaan kuulo ama alaalaxay. Sidaas awgeed shayga kuu sheega mid ka mid ah kuusha maalintii kasta ee bisha ka mid ah. Sidaas awgeed 28 kuulood muddo 28 maalmood. Meertii tusaale ahaan fargashiga yar ee halkan yaala mana lahan inuu noqdo fargashi yar ahaantii. Sidaas daraadeed waxaad arki kartaa, waxaad xusuusan kartaa inaad ku jirto maalintii koowaad. Intaasi kadibna waxaad la socon kartaa meertada adigoo la soconaya maalmaha bishii. sidaas awgeed waxaad halkan ku arki kartaa qaar ka mid ah kuulaha casaas ee halkan yaala iyo kuwa u taagan waqtiga uu haweeneyda dhiigu ka imaanayo. Hadda haweenku badankoodu waxay caadadu kaga socon kartaa qiyaas ahaan 5 maalmood. Waxa dhacaya markay haweeneydu caadada helayso waxay tahay in dhiig ka yimaado oo ka dhigan in gidaarka ilmagaleenka uu burburay, micnaheeduna yahay inaanay uur lahayn. Waxaa jira walxo ku dhex wareega jidhka oo loo yaqaano hormoono ama dheecaano, waxaanay diyaariyaan ugxanta ku dhex jira gudaha jidhka haweeneyda, kaydiyana ugxanta kuwaasi oo ah taranka haweeneyda diyaarna u ah inay sii daayaan ugxantaasi. Siliskan ma kaa caawiyo inaad qorshe ka yeelato si aad u uureysato? taasi waa su'aal wanaagsan. Sidaas awgeed kuusha buluug ah waa habka aad ugu sheegi karto haweeney in runtii uu yahay waqtigaasi waqtiga ay suurtagal tahay inay uur qaadi karto haddii ay galmo samayso. Run ahaantii uureysan mayso haddii waqtigan ay galmo samayso, waayo waa waqti hore ayay ku tahay. sidaas awgeed ugxanta lama sii daayeen ama ma ay soo baxeen. suurtagalna maaha inay halkan uur ku qaado, waayo aad ayay u daahday, ugxantiina way tageen. Waa hagaag. sidaa awgeedna haweeneydu isku dayaysa inay uureysato waqtigan ayaa aad ugu fiican. Fursadda ugu fiican ee ugxantu ay halkaasi kula kulmi karto manida waa marka ay galmo la samaysanin. Laakiin runtii waa dariiqo la isku halayn karo, waayo had iyo jeer ma ogin xaqiiqda in maalmahani yihiin maalmaha aan la bacrimin karin. maalmahana waa maalmaha bacriminta. muddo intee la eg ayay manidu ku dhex noolaan kartaa jidhka haweeneyda? manidu waxay ku sii noolaan kartaa ilaa 1 toddobaad. sidaas daraadeed waxaa run ahaantii muhiima inaad ka fikirto arrinta la xidhiidha markaad galmo samaynayso, kana fikir inaanay uur qaadayn maalinta aad galmooto. laakiin run ahaantii waxay dhici kartaa ilaa 1 toddobaad kadib. waa hagaag. caadi ayay u tahay in haweenku ay caado ka timaado waqti kasta, laakiin ilaa inta lagu guda jiro bisha caadadu isbedelaysa ee ay noqonayso nooca khafiif ee isjiidanaysa waqtigan, waayo waxay ka caawisaa in manidu si fiican u dhex gasho. sidaa awgeedna waxay ka dhigtaa mid awood leh. waxaad tidhi caddada haweenaydu waa isbeddesha. marka sidee ayaad u ogaani kartaa isbeddelka? qiyaas ahaan waqtiga ugxanta ay ka soo baxayaan ugxansidayaashu waxay aad ugu dhow yihiin nooc ugxan caddaan oo cusub. sidaas daraadeed waa nooc isjiidanaya, la arki karayo oo dhuuban. kadibna markaad u gudubto 2 toddobaad ee ugu dambeeya qaro ayay yeeshaan, waana ay sii yaraadaan. sidaas aawadeed haweenku waxa ay soo saaraan xuub badan. qiyaas ahaan waqtiga ay dhalayaan waxaanay noqonayaan noocan khafiifka ah ee isjiidanaya. marka haddii dhammaadka meerta uurku ay dhacdo ma arki doontid caadada, waayo gidaarka ilmagaleenka ayaa u baahan in sidiisii uu ahaado si uu u yareeyo ilmaha ku dhex koraya ilmagaleenka. laakiin haddii uurku aanu dhicin, haddii aanay manidu la kulmin ugxanta, gidaarka ilmagaleenka ayaa ka soo fuqi doona, waxaanad arki doontaa dhiig socda sida caadada oo kale. sidaas daraadeed hadda waxaan u malaynayaa inaynu fahanay waxyaalo badan oo ku saabsan sida jirkeenu ay ugu abuurmaan carruurta yaryar. waxaan kuu rajaynayaa inaad u bogtay daawashada.